السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته guud ahaan meel walba joogtaan meel walba nagala socotaan ardayda galaas ku jirta dhammaan intay nagala socota hawada oo dhan haddii ilaahay casharka uu duumayo waxyaalaha ugu muhiimsan horta aan rabo in casharka dawladiisa ku daro waxaa kamid ah sida Fibonacciga kalarka looga bedelo oo ku daraan insha Allah intayna xisada bilaabin waayo aad baa la is weydiiyaa ardayda kalena hadhowta ka faa'iidaysato Fibonacciga kalarka hadda arki weydid aad ka bedelisid laba jeer baad ku dhufanaysaa ashar ku dhufanaysaa laba jeer ku dhufatid maxaa samaynaysaa waxaan ku dhufanayaa right click halka field property ku dhufanayaa waa kan haddii common kuu joogtay common ka soo tag xagaad imaanaysaa fibro leveriska marka timaado maxaa samaynaysaa kuwa lambaradii oo dhan kalarkaa doonta ka dhiganaysaa haddaad madow ka dhigo madow noqonaysaa haddaad doonayso haddii liiska yarare lambar ku dul qoran yahay ee kuu yaraadeen aad doonayso inaad bold ka dhigtid kan geesaad ku dhufanaysaa mid oo si weyneyn kartaa u fiirso wixii isla weynaa soo jeedaan madow ay noqdeen haddaan buluugii ku soo celinayaan waxaan samaynayaa laba jeer baan haddana ku dhufanayaa kaa waa in madaxa yara buuran soo baxsan yahay si kadibna midigta ku dhufanaya klik labada kadibna midigtan ku dhufanayaa marka midigta ku dhufto waxaan samaynayaa fibro property ku dhufanaya fibro property ku dhufatay waxaan ku soo baxaya shaashadan hadday commonka joogto waxaad keenaysaa fibro leverka waxaad samaynaysaa halka blackta igu ah ama kalarka styleka ah kalarka doonta ka dhigan kartaa waa haddaad kalarka bedelaysid sidoo kale haddaad bool iyo inay weynaato oo aragti doonaysidna boolka ka dhigan kartaa haddii halkan lambar kaa maqan yahay lambar ku darasid oo kuwan halkan waa lagu daraa halkan baa ad la yidhaahdaa ad markaad tiraahid lambarka ku dari kartaa halkan waaye haddaad markaa garanaysa lambarka lagu daraana mt4 kale oo qof kale haysto ka qish si uu lambar ku qoran yahay labada lambar labadaba halkaa kala geli waa si fudud ama trade view kasoo qish labada lambar la kala geli weliba trade view kala xisaabi isticmaalaan qof kale mt4 haysta tiisa fur propertyga 78 sida lagu daro waxa asaga ugu qoran un kusoo darso ad baa odhanaysaa kadibna okay ugu dambeynta odhanaysaa wuu ku bedelmaya waa easy intaa qoriyo weyn kaasi taas waa Fibonacciga waxaan kaloo sii raacinayaa yadna waaye trade viewga waa sida eegin doonaa maanta hore ardayga weydiinay waxaan kaloo idiin raacinayaa ardayga isticmaalaya sida loo baasha meesha la dhigayo isla eegi doonaa trade view waxaan sameynayaa mar walba waxaad ku qabanaysaa ardayda arka iyo fahma mar walba training baasha tan waxaad sida inta ugu soo maxaa ku qabanaysaa trade linka ka tag impulsiga si aad u ogaatid meesha la rabo in qiimo ka noqdo soo ma jeedid exactly okay cos Fibonacciga waxay ku sheegaysaa trade waaweyn oo dhan waa loo isticmaalaa impulse ku soo qabanaysaa ilaa meesha soo qabanaysaa hadda waxay noo sheegtay already maarta trade link waa kan 50 ga soo taaban kartaa kadibna way noqon kartaa saa darteed 1 hour ka weyn candle ka banaanka candle ku xurmaa candle kale adeegta wuxuu sameeyo si aad safe u ahaatid safe waa si wanaagsan tay noqoto waa gelana insha Allah intaas horta waa inta casharadii hore waa casharkii hore aynu isla eegnay waay wixii su'aalaana xagga dambeenu ka dhiganaa marka aynu hore u galno waay maanta waxaan dhiganaynaa casharka maanta waxaan dhiganaynaa wax ka muhiimsan horta intii hore inagu muhiimsan ama casharkii maalintii ugu horreysay soo dhiganay oo maanta rabo inuu si toosa idiin galo waay kasoo qaad waxaan u bixinaynaa waa si aad u samaysan lahayd system qofkas u samaysan lahaa waa saynu system u samaysan lahayd system soo sameeyna waxaan u baahanahay system qofku u sameeyo marka hore horta waxaanu isla fahanaa maraaxiisha la maro waana meesha ugu muhiimsan qofku hadduu samaysto inta halka marasa markuu maro hadda ardayda hadda level 3 soo gudbay analysis-koodu fadhiyo sidoo kale set-up strategy soo saaray in ay fadhido ay labadaas ay fadhido already waxaa jirta tijaabo dheer ama wax badan kale oo sii baahan saa darteed waa inaad fahantaan maraaxil baa jirta la marayo qofku maraaxil baa jirta oo maro maraaxisha wayna marno wada marasaan ama laacib fiican ku ahow waxan ama markii hore ka soo fahan already waa maras waxa lagu kala duwan yahay qofku aqoontu u leeyahay marxaladda marayo oo isugu baxayo waxa lagu kala duwan yahay waqtiga kooban laga baxayo maraaxisha ay traders ku maraan all the traders way mareen
haddii qofku ku yidhahdo anigu trader fiican baa profitable trader baan ahay lacag baan ka sameeya suuqan si fiican baa uga faa'iidaa isla markaana uu ku yidhahdo weligay ma khasaarin ama maraaxiishaan sheegi doono ma soo marin wax badan baa u dhiman experience ma hadduu run sheegayo waaye marxaladda koowaad ee qofka ay maraan waxa weeyaan qofka marxaladda koowaad qofku mara waxa weeyaan xisada hore baan idin siiyey maalinta ugu horreysay waa idin fahansiiyey laakiin hadda idinka u baahi badanta inaad fahantaan ardayda galaas ku jirta sheegaya marxaladda ugu horreysa qofku maraya waxaa la yihahdaa qofka wax ku bilaabaya khasaare fara badan khasaare fara badan losing all the time mar walba khasaaraya uu khasaaraya hadduu laacib yahay oo aan alles wax fahansan yahayna khasaaru arkaa garanmaya sababta haddii uusan garanaynbana uusan systemka garanayn uu ku cusub yahay waxa forex ku cusub yahayna marna wuu khasaarayaa marna wuu faa'iidaya garanmaya sababta marna wuu khasaaraya marna wuu faa'iidaya laakiin kulle marka dambe khasaare badan ma lus garanaya saa darteed maxaad aragtaan qof walba oo kulaha lacag baan sameeyey muxuu kaaga sheekeynayaa intaasoo jeer baan soo khasaaray intaasoo jeer baan soo khasaaray intaasoo soo khasaaray of course sharciga bahasha ma saa qof meesha aan soo khasaarini lacag kama sameeyo waayo qofku marxalad kusoo xiga wuxuu sameynayaa khasaaruhu yareynayaa khasaaraha buu yareynayaa khasaaruhu yareynayaa shayga kusoo xiga waa maxay qofku muxuu sameynayaa khasaarihii wuu ku guuleysanaya inuu yareeyo badanaa khasaaraha markuu yareynayo laga yaabaa inaysan aqoon uu soo yareyn laakiin wuu baqaya tradadii faraha badnaa buu qaadanayo iska daynayaa wixii buu yareynayaa somehow dadaal badan buu sameynayaa kadibna muxuu ku guuleysanaya inuu yareeyo khasaarihii inuu yareeyo buu ku guuleysanayaa of course dadaalkan faraha badan uu sameeyey dartii waaye amaba baqdintan kasoo gaadhay lacagtan lumasa lacag baa ka lumasa lacag baa ka lumasa kasoo qaad wuxuu ku bilaabaya $200 wuxuu arkaya isagoo muddo yar ku jira mise already $100 ma hayaba saa darteed si uusan boqolka kala waayin trade badan qaadan maayo hadduu losseska weyneyn jiray losseska wuu yareynayaa muxuu sameynaya marka taxadar buu gelaya taxadar adag buu gelaya of course way karasaa khasaaraha karaya marxaladda saddexaad ee qofku u gudbaa halkan waxa loogu soo gudbaa waa sama aqoon waa macquul wixii kan laga soo gudbaa qofku wuxuu u dhaxaynayaa khasaare iyo faa'iido khasaare iyo faa'iido badanaa dadku markay khasaaraha fara badan kuma bilaabaan faa'iido ku bilaabaan marka hore faa'iido arkaya kadib uu khasaaraha badan gelaya waayo qofkan qof suuqa waxaad moodaa dadka inuu soo dhaweeyo somehow qof walba forex ka bilaabaa maalmaha hore signal uu qaataa lacag buu ka sameeyaa lacag buu ka sameeyaa lacag wata keenta inuu khasaare badan galo laakiin kolley khasaare badan buu markaa gelaya faa'iidadu shaqadiisa day khasaare badan buu gelaya waa shay dabiici ah dadka aad ugu dhacaan kadibna qofku muxuu soo gelaya khasaaruhu yareysanaya wuxuu fahmayaa waa uu khasaaraya saa darteed khasaare badan khasaare maayo tradadu yareynaya systemka kolley waxuu ka shaqeynayaa dabeecadiisa wuxuu ka bedelaya khasaaraha yaraanaya and then waxaa laga yaabaa inuu maalin faa'iido maalin khasaaro usoo bedelo mar khasaaruhu yara badan yahay mar faa'iido badan yahay halkaa wixii loo soo gaadhaa markuu soo marayo cilmi unbuu u gudbiyaa cilmi unbuu kaga bedeli karaa waayo marxaladda afraadi waa marxalad la yidhaahdo faa'iido joogtaa inuu sameeyo uu khasaare kasoo baxo faa'iido joogtaa inuu sameeyo faa'iidada joogtaa macnaheedu maaha stop loss kama taabanaysa maaha macnaheedu waxa weeye stop loss ka qanacsaa he lose someone laakiin marka la soo eego maalintu marka dhamaato inta uu khasaaray intuu faa'iiday maxaa fara badan intuu faa'iiday wiigu markuu dhamaado intuu faa'iiday intuu badan yaa badan intuu faa'iiday hadday 5 jeer haddii uu khasaaray almost shan kale uu faa'iiday baa ka lacag fara badan of course wuxuu fahmayaa trickiska khiyaanada meesha ku jirta fahmaya wuxuu fahmayaa sida loola macaamilo suuqa how risk managementiga ugu muhiimsan wuxuu fahmaya qofkaas oo kale marka wuxuu sameynayaa wuxuu yareynayaa khasaarihii kadibna khasaarihii faa'iido yar buu sameynaya kadibna wuxuu soo gudbayaa inuu faa'iido joogtaa sameeyo ma badna inuusan sameyn faa'iido badan laakiin waa nin suunku u xiran yahay dhexda haysta oo caloosh ka xiran oo sii soo baqaya laakiin faa'iido joogtaa uu sameynaya last meesha ugu weyn ugu dambeysa qofkani ee u wada ordanaa ama la wada ordaa maxay tahay qof walba uu soo orday fariq soo bilaabaa qofku inuu sameeyo inuu noqdo faa'iidada uu doono inuu sameeyo faa'iidada uu doono inuu sameeyo inuu suuqa si jeebkiisa ku xisaabtamo profitable traders baa dhigay we know maalintu faa'iido sameyn karo hadda beriyo kale waa jimce waa inay dhidi a lot of people dad badan ba maxay ku xisaabtamayaan beri waxay og yihiin beri inay lacag fiican sameynayaan dad baa laga yaabaa inay maanta 1,000 ama 2,000 akoon ku shubteen si ay beri 10,000 ka dhigaan fos way og yihiin way awoodi karaan maalintaas waxay maalintaas yaqaanaan sida loo macaamilaan wuxuu yaqaanaa maalintu faa'iido badan sameyn kara wuxuu yaqaanaa sidoo kale 4 saac xilligu doono suuqa soo gelaya kadib muxuu sameysanayaa target BBskiisii of course muxuu og yahay inuu lacag sameyn karo wuxuu garanayaa dariiqada wadda uu sameeyo dariiqada uu lacagta uu sameynayo buu garanayaa marka wuxuu sameynayaa qofku faa'iido doono waxay yidhahdaan profitable trader waa dee meesha ugu weyn ee loo ordo waa meesha ugu ballaaran weyn ee loo ordo ase Soomaali niman yahow Soomaalidu wadada ilaahay iska maskax iyo dadaal ku nimceeyay dadka marka degeysatay kale
ama traders kale qaar macalimiinta ay markaa ama kuwa youtube ka dhegaysatid profitable trader waxaan ku noqday 5 sano gabadh baan dhegeysanayay beri dhexdaas fahanayay 3 sano gudaheed waxaan ku noqday profitable trader faraxbasanahay faa'iido fiican ku samayn karaa raadan ay ku samayn jirtay dadka ku sameeyaan bay leedahay 10 sano aniga 3 sano ay ugu qaadatay Soomaalidana bilo u maleemayo ardaydu ardayd baa ku jirta muna 9 casho kusoo gaadhay qolka practicalka aan iska hayso maanta waan aniga u hambaleeyay kiina ugu badan hayaan bileer ku jiro maantana arday badan oo kamid ah life 3 way soo gudubtay ama life 2 way soo gudbeen waxay garanayaan how they analyze the market waxay garanayaan wax walba suuqa ka dhacaya saa darteed haday fahmaan shaxda trickska maanta oo aan trickska maanta dhigi doono waxay sameyn doonaan kaliya waxay sameyn doonaan maraxisha soo marayaan maraxisha waxay ku marayaan waqti yar waxa macquul ah inay 2 wiigo kala ama weekend ku qaataan maraxisha martaan waayo waa experience waxaan wad maraysaa markaad maraysid laakiin markaad ogtahay inaad maraysid markaas ku mid maaha hadda khasaare fara badan kugu dhici maayo already khasaare yar khasaare faa'iido yar baa soo imaani aan faa'iidada badan kadib faa'iido joogtaa fadhiisin halka way la socotaa ma jacay waay kasmaada waa dad ilaahay xogaa maskaxda u macni u saalay walow dad inaga maskax badan ay jiraan waay oo socona qofku marka muxuu ku ogaanayaa marxaladu marayo muxuu ku ogaanayaa waxa jira miisaanka maraaxisha qof waxaa jira miisaan lagu cabirayo xagaad maraysaa marxaladda maraysaa watii how sidee ugu gudbi kartaa systemka ka caawinaya miisaanku waa maxay waxay yiraahdeen qofku inuu yeesho system isku xidhan inuu yeesho system isku xidhan inuu yeesho maxay qaadanaysaa waa 10% yiraahdaa haa waa 10% waaye halka ay inaysi jirayo systemku waa maxay ma sii sheegana mid aan sii qaadi doono hadii la yiraahdo qofku boqolkiiba baa laga rabaa inuu wixii laga rabay keeno boqolkiiba hadduu keeno already wuxuu ku guuleysanayaa inuu profitable trader ku doonayo noqdo maxaa ugu horeeya wax laga rabo system inuu leeyahay meeshan muruq iyo iska soo orod iyo igu soo orotoona ma waxay rabtaa in aad dhisan tahay si aad lacag u samaysid suuqa nin iska soo gala oo ku yiraahdo lacag baan sameeyaa waa runtii maanta lacag buu sameeyaa macquul haduusan lahayn system degan haduusan lahayn haduusan 100% ama boqolkiiba 90 soo mareen uusan garanayn meeshuu marayo iyo suuqa soo bixi karo iyo wuxuu soo maray haduusan garanayn haduu ku yiraahdo maanta $100,000 baan sameeyaa inuu bari khasaara 100,000 wax weyn ma of course muxuu u baahan yahay marxaladdu joogo yahay inuu fahansan yahay waayo systemka maxaa ugu horeeya systemku inuu horta waxa ugu horeeya inuu trader nooc yahay yaqaano inuu yaqaana ganacsade noocee weeyaa waayo hadaa aqoonad ka wax ka ganacsatay inaad ariga ka ganacsatay hadaa aqoon meheradaada oror furtid marna gala furtid marna duhur furtid hadaa waxaas oo dhan aan fahamsanayn saaxiibada meheradu meher shaqeynaysa ma lacag ku sameeyso idinku ka war hadaa maalin ororti furo maalin duhurti furo maalin aan dhar keeno maalin aan kaba keeno 10 sano hadaa wax ku dhex jirtid lacag ka sameyn kari maysid nolosha dhabtaas ah marka suuqan waxa la rabaa in loo fahmo trader noocee baa tahay ma scalping baa tahay kuwan aad u sharaxi maayo scalping waa maxay waan naqaanaa scalping waa suuqa BB yar laga raadiyo badana ruwaar raashidiisu waa 1 of 1 bay u badan tahay waxa uu qof lumin karo ugu faraha badan waa 10 BB waaye ma intraday baa tahay intraday suuqa waa in laga raadiyo maxaa laga raadiyo suuqa 30 BB ka raadis 40 BB ka raadis 50 BB 30 BB meelaha ka raadinaysaa halkan scalping 15 BB raadinaysid ku isku dheeraamaysaan kan ruwaar raashidiisu wuxuu noqon karaa 1 of 2 sidoo kale muxuu lumin karaa stop loss-kiisa ugu badan wuxuu ka dhigi karaa 10 ilaa 40 waayo ugu badnaa ilaa 70 BB buu raadin karaa wuxuu raadin karaa ilaa 70 BB buu raadin karaa qofka intraday-ga ah signalka uu qaadanaya ilaa 70 BB uu ka raadin karaa saa darteed qofkaas oo kale maxaa laga rabaa waxa laga rabaa inuu maxay sameeyo inuu waxa ugu badan stop loss-kiisa ka dhiganayo 40 BB tahay saa darteed loss-kiisa uu yaqaan ninka scalping-ka stop loss-kiisa ugu fogi waa ugu yari 10 BB kana waxaan ugu badan 10 ilaa 5 BB ka dhigan kara 10 BB ugu badan 10 BB hadda ka dhigto stop-loss-kiisa lacag uu sameyn karaa dadka badan scalping hadda baranaysa dadka doonaya inay markii akoonkooda koriyaan markii lacag sameeyaan haday 10 BB qaataan 10 BB stop-loss loss-kiisa u weynaanayo waa intuu sidoo how loss-kiisa ku weynaanayo hadii la yiraahdo waaye tan aslaad ka doona waaye waxa ku xigo kale waxa ku xiga day trader saddexdan u badanahay inuu noqon day trader ku waa maxay qofkaas wuxuu lumin karaa 40 ilaa 80 BB lumin karaa stop loss-kiisa ka dhigan karaa
traderka muxuu raadin karaa 110 120 130 160 150 bib buu raadin karaa traderka muxuu hayn karaa halka scalpinku saacad ugu badnaa haynayo ninka intradaygaana maalintii uu haynayo san habeenka doonin inuu ka saxo kan muxuu hayn karaa laba saddex casho hayn karaa dad usbuuca traderka uu haynaya trader weeyaan sababtoo more bib buu raadinaya suuqu hal mar iskama dhaco hadda waxaan waa hours markuu doonayo inuu halka ka galo uu doonayo inuu ilaa halka hayo already 200 bib ku dhow haya uu rabo inuu hayo tee saacadood buu haynaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 halka waa iska 20 saacadood iska meelaha 40 saac waba dhowda ka soo qaatan hore ka soo galay shantan ku dar waa 40 saacadood waa habeen iyo maalin waba kan waa kan dhalo waaweyn buu ku jira maasha Allah si fiican bay ugu ordeen hadduu la socday impulsigan uu la socday oo impulsigan soo cabirtay already impulsigan buu cabirtay uu xusugayay meeshuu kaga dhaco soo ma jeedid 61 ku dhacay impulsigan ku cabirtay 61 ku dhacay aagas 61 iyo tira leenka u kulmay boom wuu galay qofkaasi wuxuu ka raadinayay bibs fiican buu ka raadinayay hadduu ahaa scalpin hadduu ahaa already hadduu meelaha ka galo 10 bib ugu badan uu raadinayay 10kiis bib candle baa siiyey gararadeer uu ka baxay la socotaa hadduu ahaa interdayna wuxuu raadinayay 30 bib meesha ugu fog uu raadinayay wuxuu ahaa in impulsigaasi halkaa gaadho saa darteed wuxuu raadinayay wax gaadhaya 40 bib 50 bib meelaha ka baxay weli lacagtan waa JBB way JBY oo volatile weeyaan lacagteeda candlekeeda waa bib badan weeyaan marka qofku waa inuu og yahay ku yahay waxa ku sixiga traders kale oo iyagu swing trade oo kale swing trade hadii lacag fiican ku jirto iska noqon kartaa swing trade qof laba isbuuc 14 15 meelahaas hayn karaa wuxuu lumin karaa gaadhaya ilaa 250 bib stabilis ka dhigan karaa meel fog buu wixii soo tuuran karaa way sidoo kale qasab adoo lacag yar kugu jirta baad dad sabir sidoo aad hawlo badan ku mashquulsan tahay swing trade ku qaadan kartaa way hadda dad buu arkay isticmaala swing trade bay u shaqeeyay uma wajin og yihiin laakiin tradeada qaataan waxaan arkay 200 bib 150 bib la sayr bay ku galaan lacag trade kaas stabiliskiisu aad buu u fogay sadarteed in badan buu maas galay ardo soo galaya u faa'iideynaya laakiin qofka iyo dibacadii wuxuu doonayay dad Soomaaliya oo dhalinyarada isticmaala saasna waa arkay waa positionka way waa arkay dad macallimiinta ay maalinta ay xisaan dhigano digta oo kamid ah dhiga jiray nin lahaa maalin baa arkay 8 bilood oo dahabka hayo bay u hay aan dhaxlaas 8 bilood buu haynaya sanad buu haynaya 2 sano haynaya 600 iyo wixii ka badan 600 loo gaaro stabiliskiisa ka dhigan karaa uu ka badin karaa stabiliskiisa wuxuu haynaya trade-ka muddo aad u dheer buu trade-ka haynaya muddo dheer buu trade-ka haynaya mala socotaa marka adiga number 1 si aad systemka u cadaado waa inay cadahay trader nooceed trader iskan adigu keebaad marka trader nooca tahay cadahay micnaheedu waxa weeyaan waxaad haysataa 3% haysataa 3% haysataa 10 baa laga rabaa muuda systemka waxa laga rabaa 10 3% waxaad ku haysataa boqolkiiba boqol baa trade haysataa marka traderka qoriga cadeysid second waxa laga rabaa weeyaan inaad cadeysato ku cadaado waxa laga rabaa inuu ku cadaado adigu nooceed tahay analyzer nooceed analyzer noocee ah baad sidee suuqa u falanqaysaa sida suuqa loo falanqaysaa way fara badan dadku siyaabo ma qeeyaan dadka qaar support arrested qoriga isticmaalaan saadada iyaga direction waxa kama gelin gidaarkaas soo jabay saadada trade-kiisu qaanayo 10 bilaad wuxuu doonayo resistance bay isticmaalaan dadka qaar supply and demand bay isticmaalaan sida ninkan levels soo saaray oran weyday macluumaadka macalinka ay malo kale supply and demand bay waxay ama ninkii crystal yiraahdo kale aad bacaan ugu yahay supply and demand dad bacaan ku dhimaan wax kale aan isticmaalin halkaas u baahan qiimaha lagu celiyo halkaas ku fara badna halkaas u dhibid ku badna halkan aad uga dhaqaaqay 3 step 4 step ay egtaan steps-ka soo saxan wuxuu noqonayaa taas u boodaya way qolooyinka chat patterns ka isticmaalaan aynu ku jirno inagu chat patterns ka isticmaalaan chat patterns ku bilaadeen qolo waxay isticmaashaa reversal patterns ka rabaan reversal patterns ka rabaan way qolo kale waxay rabaan continuation pattern ka rabaan qoloba waxbay aad u isticmaashaa waana mid cadahay waxa waliba labadaba ma wada qanan kartid dadka maxay isticmaalaan hormone patterns ka dad baa isticmaala
باترنسكا dad baa isticmaala waxaana way kursi kala fiican yihiin dadka traderska dadka scalping oo kale sababta dhimaan sport tikuru waan faacaya dadka tamuka biyaad u raadiyo sport haday aad u fahmaan sport wuxuu yahay oo gidaarkan baa la soo jibiyay gidaarkan baa la aadaya oo birig dhoonka eegana waa iska fahmaan marka dadka qaar waxay jecel yihiin marka inay hormonic pattern suuqa ka raadiyaan oo ku aan iskarayaan dad baa iyagu aan hormonic jeclaan waxa yiraahdo ileed wave-ka eeganaya ileed wave bay suuqa ka raadinayaan way ka raadinayaan suuq qoloba waxbay suuq ka raadisaa nin kale wax kale somehow qofka nin baa wuxuu raadinayaa waxa la yiraahdo M strategy oo arkay bidhaweed M&W strategy dad badan oo isticmaalo waxa la yiraahdo arkay waa double topkii oo si kale loo bedelay ama si yar ka duwan yihiin newska oo isticmaalaan qoloyinba waxbay raadisaa adiga marka maxaa laga rabaa haddaad doonaysid in analyzer 3% uu ka rabaa 3% waa maxay marka halka analyzer ku keeni kartaa 3% ku keeni kartaa waxaad ku keeni kartaa kuwan inaad mid qaadatid ma support ma tahay ma supply baa tahay ma chart patterns ka tahay analyzer-ka nooca tahay sidee suuqa u falqaysaa waa ina cadda haddaad tiraahdo inta ma suuq ku raadinaya saaxiib inta suuqa wax inta ku raadinaysid already way ku dhaafeen ma waxa doonaysid dhuu kala tag boom in baa si dhaqaaq suuqi dhaqaaq adduunka dhaqaaq xaarkasa TB hit ku soo dhacay ka qaarona TB noo qaracay adigana way analyzer ku jirtaa shaki baad ku jirtaa waayo way isburinayaan si isu burinayaan markaad Fibonacci qoriya isticmaalaysid oo iyo doof kale Fibonacci aad baa loo isticmaalaa kana aad extension ko aad loo isticmaalaa labadaba aad loo isticmaalaan inagu waa isticmaalaa Fibonacci adoo Fibonacci isticmaalaya baa nimba qaacido leey adoo chart pattern raadinaya nimba qaacido leey saadad marka qaad wax macquul ah in adigu aad bay waartay ninka uu arko sel maxaa keenaya sababtoo analyze-kooda kala duwan sababtoo analyze-kooda baa kala duwan waxaan moog in saaxiibayaal way suganay already waa soo noqoteen hadda meeshii bay kasii bilaabanay waxaa ma goyn waay macnaha support qadar qaar waxay ku leedahay macnaha waxa sababta loo yiraahdo qofka muxuu keenayaa soo dhigayaa sell qofkan wuxuu soo dhigayaa buy waxa maqasay labadii TB u qaraacay midna stop kama qaraacin waa sax waa ninkana tiisu aan la iskaray kana tiisu aan la iskaray ninkan hormonic pattern buu arkay hal tusaale fudud baan siinay tusaalahan ninba wuxuu aan la iskaray wuxuu arkay hormonic pattern saa u samaysan wuxuu arkay hormonic pattern saa u samaysan marka wuxuu yiri already waa hormonic pattern kan already trade-ka halka waxaan u gelayaa buy trade-ka waxaan u gelayaa buy 38 ku soo noqday TB-giisu waa 38 ma garatay nin kale isla pattern-kii oo ninkaasi saa u arkay muxuu arkay ninkaas muxuu arkay buy buu helay isla nin kale soo orday muxuu arkay isna wuxuu arkay continuation pattern kale soo dhamaaday ama somehow systemkii soo dhaafay break out sameyn raba ama correction halkan buu arkay break out sameyn raba sadartan muxuu galay isna sell stolskiisa 61kii oo kale u yaala kana stolskiisa lama gaadhin oo TB kana stolskiisa lama gaadhin all to boom kana ugu dhacday ka koowaad ugu soo dhacday TB soo qaraacday kala waana ugu soo dhacday TB soo qaraacday tibaf labadu way faa'iideen sababta kale indhahay ahaayeen sadarteed qaacida jirta suuqan qofna lagu yiraahdo forex adaad maqashin qof leh hebel uu khaldan yahay aan la iska yaqaano waxa uu buy u qaal hebel sal buu galay maxaa soo galay qofkaas saay kala dhiman suuqan maxaa saa u qashay lama yiraahdo ka soco taada ku waxba ku analyze gareysatay idinkoo hal wax isticmaalaya ba hadana kala indha noqon kartaan buy sal idin kala muuqanaysa sal labadiinuba guusha geli kartaan la socotaan sadarteed maxaa fududeeya qof inuu wax ku qaato kalsooni ku qaato mar walba inuu ku guuleystaa waa inuu analyzer noociye waana meesha ugu muhiimsan systemka which trader oo nooca tahay waxa kale analyze ka sameeysan analyze-kan waa inuu yahay analyze ku saamaxaya in aad scalping noqon kartid inaad trader noqon kartid inaad noqon kartid intraday inaad trader qaadan kartid maxay si ku saamaxayaan hadda kuwan si fiican u fahantid ku saamaxay hadda analyzer kuwan mid qori aad u baratid ku saamaxayaan ba wax walba aad ka doonaysid suuqa waayo biibka aad doonaysid ku xidhantay traderka noocata maalmahan qaar baad adoo intraday xogaa scalping sameyn kartaa waayo analyze ku fadhiya adoo analyze ku fadhiyo waa ugu muhiimsan ee laga rabo ugu muhiimsan in laga rabo sadarteed in strategy isticmaalna analyze-keena weyno jaraya wax aad arday wadiina u jiray laakiin waxa uu ku jaraya scalping uu ka dhigi karaa day trader uu ka dhigi karaa intraday uu ka dhigi karaa waana way fahansiinaya waxa ku xidhantahay hadba meesha gashid waayo always waxaan raadinaa early trigger waxaan raadinaa afka bilowga imbalsiga soo raacay afka bilowga imbalsiga soo raacayna hadda imbalsiga dhameysatid already day trader waad meesha u dambeysay waad gaadhay already raad bi waa qabat hadda correction ka dhameysatid inta dhawaad 40 bi wakiil lacagta ku volatile yar hadda inta u dhaxaysa markuu soo dhaqaaqo la soo dhaqaaqina soo afka correction ka soo gaadhin trend line ka soo gaadhin 10 bi waash saas scalping ku tahay la socota marka all of them waxa laga rabaa kaliya inay fahantiin sidoo kale
waa inay all the time frame kugu shaqeynayaan time frame ka oo dhan istaraatiijiyada markaasi time frame ka ku doono ha noqdo waayo interiga meesha ka galaysa ku xiran tahay scalp hadda tahay 15 minute laga galaa hadda interday tahay 1 hour ka data dadka labada 1 hour ka galaan waayo kan dhalkan yar biibska yar soconaya u baahan tahay moogtahay marka adiga waa in analysis sare ku saxay kadibna ku saxsan si aad marka u noqotid profitable trader ugu dambeynta haddii b pointigaagan ku saxsanaado a pointigaagana ku saxsanaaday isla markaana aad noqotay nin trader noocu yahay ama systemkiisu cad yahay isla markaana analyzer noocu yahay cad yahay saaxiib guul way baastaa 3% dadka maxaa systemkii maxaad ku guuleysatay 6% ina aamina inaad trader nooca tahay ku guuleysatid inaad analyzer nooca tahay ku guuleysatid iyo tan saddexaad inoo dhiman oo systemka 10% ka systemka ah waa 10% quriya iyagaana ugu adag iyagaana ku gaarsiinaya 10% ku gaarsiinaya 90 baa ka maqan hadana without 10% ka la'aantood 90 ka kale ma keeni kartid 90 ka kale ma keeni kartid way ka saddexaad u dambeeya waa maxay ka saddexaad u dambeeya waxa weeye waa inaad leedahay trading plan waa inaad leedahay trading plan maxaan ka wadaa schedule waa inuu ku degan yahay ku qorsheeyay trading plan waxa la yiraahdaa trading plan qofku trade maxay qofku inuu maanta suuq qorshe ku gala qorshe kaga baxa ugu soo horma halkan hore waan ku sheegay haddana maanta sababta u soo gelaysa aan garanayn sababta uga baxaysa aan garanayn oo aan qorshe ku imaan qorshe kaga tagin suuqa iska dhex jiraysa suuqa ku dhex jirka suuqa faraha badan say khasaare badan keena ku dhex jirka suuqa faraha badan suuqa say khasaare badan keena qofku soo yeesho trade plan maxaa looga baahan yahay inuu helo waxaa looga baahan yahay kow waa inuu leeyahay beep goal leeyahay ma beep goal inuu leeyahay beep goalkaas waxay noqonayaan qofkaasi waa inuu ber trade yaqaana wuxuu ka raadinayo sidoo kale waa inuu ber day inta beep raadinayo waa inuu yaqaana sidoo kale ber week waa inuu yaqaana inta raadinayo hadaad 500 beep week doonaysid shanta cashaad u qaybinaysaa isla markaa maalmaha ku fiican dad maalmaha qaar xitaa shaqeysa dad qaar baa qoranaysa ma shaqeyno jimcaha ma shaqeyno adiga yaqaan maalmaha shaqeysa laakiin trade plan ka waa inuu cad yahay maalmaha shaqeysa waxa inuu cad waa inuu caddahay beep goal waa inuu caddahay system goal cad leedahay sidoo kale bayriska waa inaad kala taqaanaa waa inaad bayris aad jeceshay waxa ku sii jira volatile bayriska hadaad qoladina scalp-ka jecel volatile bayriska waa inaad isticmaashaa waa markii ka saartaa lacagta faa'iidada ama khasaaraha faa'iidada dhac labada mid ku tuurtaa labada mid waa inaad ku tuurtaa bayris waa inaad leedahay bayris gaar waa inaad leedahay waxaad doontaa hadaad aad jeceshay wax weyn maanta dul martay doonaysa maanta inaad khasab lacag heshid oo fiicanta analysis-kaaga awood badan laakiin waxaa fiican bayris gaar inaad leedahay saa darteed bayris hadaad leedahay dibcadeeda la socotaa waqti badan kaaga qaadamayso inaad analysis garaysid waayo shalay waxay guday ogeed shalay baa biib ka qabatay daraad baa ka qabatay tii ka horeysa ka qabatay saa darteed systemka dhan waa fahansantahay halka way fahantaan jecel waaye saddex waa inaad leedahay entry strategy waa inaad leedahay suuqa ma sagalaa maaha analysis-kaaga fiican maaha waa inaad leedahay qaab suuqa u gashid markuu break outkaas dhacan galaa markuu market digus jiraan galaa moving average jiraan galaa trend line break out baan sugaa waa inaad meel yaqaan joogtaa si aad markiiba meesha indhuhu raadiyaan si meesha indhuhu markii u raadiyaan suuqa soo gal marka suuqa soo gashid wixii aad doonaysid suuqan ka eg meesha aad doonaysid ma la joogaa sector waa la joogaa sector ku anfacaysa marka way ku anfacaysa waxa doonaysid dal joogo marka way ku anfacaysa laakiin haddii aad maalmo bisaashid isticmaashid isbuuc mid isticmaashid waxa la mid tahay nin meherad haysta maalmo shaqaale keena nin meherad haysta uroogo bana shaqaale cusub soo tajiya qiimaha baash joogto ma yaqaano maalmo khasaare ku jira waxaa kaloo jira dadku dhibka haysta qof wuxuu qoranayaa tanaan tijaabi saaxiib waxba ma tijaabin istiraatiijiyada farbama soo tijaabi abti waxba ma tijaabin ruma doonaysaa waxba ma tijaabin of course saa waxba tijaabin istiraatiijiyada isticmaalaysaa waa in mid analyse-keeda aad fahansan tahay kadibna intrigeeda aad fahansan tahay haddana analyse-keeda tijaabin say ku timaada haddaan ogeyn wiilkeedii goorta shaqeysa haddaan ogeyn hadda waxaynu nidhi MACD inagu iyo moving average koo laatan waa la dhaafaa MACD waa la dhaafaa Fibonacci waa la dhaafaa goormaynu eegnaa marka trend line-keena qiimaheena joogno eegnaa qofka aan trend line-ka soo saawiran karin ee naga mid ah ee aan trend line-ka samaysan karin hadaa maanta 100 jeer saacid bartid ma isticmaali karo haddii 2 jeer faa'iido furto kadib khasaare u keenaysa of course ama inta khasaare ku badanaysa sababta analyse-keeda ma yaqaano saa darteed waxaa rabtaa dad fara badan oo kula isticmaalo tijaabinaya inaad istiraatiiji fara badan raadisaa wareeraba saa darteed horta bal niyo fadhiiso suuqan lacag samee wax kugu filan xaafadaada ku filan naftaada ku filan samee
kadib haddaad hajar noqotay haddaad doonaysid nin waxaan cilmiga dadka looga dambeeyaa oo cilmi badan aad baranaysid markaa gal laakiin marka hore xirfadan qabo wax ka qabso waxyaalaha ugu muhiimsan laga rabo weeyaan inaad leedahay inter strategy oo ugu muhiimsan inaad goolkaagu cad yahay bayriska isticmaalka sidoo inaad cad yahay waxay ku daraan xilli maad shaqaysaa waa taqaanaa xilliga haddaad xilligaa shaqaysa taqaanid exactly waxay kaa caawinaysaa xilligaa lacagaha shaqeeyaa taqaanaa in baarsiga dhaqaaqaa taqaanaa haddaad xilli walba suuqa soo gashid oo aadan lahayn wax kuu badiila aday gacantaadu aad analyska u fadhiyin oo aysan ku badin xitaa waxaa fiican hataa aday gacantaada ku fadhido inaad xilli gaara yeelatid ama landa siiso soo gal ama niyo soo sii gal ama waxaad unta gal bayris gaara haddaa leedahay xilliga dhaqaaqadana aad taqaanid xilligaa soo gashan aad taqaanid saxiibo suuqa lacag baad ka samaysaa joogtaa biibkaaga aad taqaanid si fiican baad lacag u samaysaa trade balankaaga hadduu ku cadiyahay waxay sii gaarsiiyaan dad baa waxay ku odhanayaan sii gaarsiiyaan heerka ay markay trade balank samaynayaan buyer baa tahay mise seller baa tahay qaar baa ku odhanaya buyer baa tahay mise seller baa tahay anigu weli ma seller iyo buyer iyo waxa ma kala dooran inkastoo aan buyerga selka ka jeclay weliga laakiin waan qaataa buyerna waa isticmaalaa selkan waa isticmaalaa qaar waxay yidhahdaan ma bending orders ka isticmaashaa mise markscutionka bending orders news mooyaane bending order ma isticmaalo dadka qaar baa ku odhanaya bending orders ka nooco qaataa ma bendingkaad qaataa mise mise executions ka qaataa kay qaadataa dadka qaar baa ku odhanaya horta waxaan dhan waa trade balan weeyaan waxaan dhan waa trade balan waxaa weyn sii cadaadan kullamaa aad sii caddahay wa kullamaa aad tahay profitable usii dhawaanaysid tan waxay yidhahdaa marka qofku hadduu inta ku guulaysto wuxuu faa'iidayaa 4% boqolkiiba 4 buu keenay halkaa muxuu buuxiyey 10% buu buuxiyey wixii laga rabay halkaa muxuu buuxiyey 10% waa 10% ugu adag waxaa la rabaa inaad adiga awooddaada iyo dabeecaddaada ku dabaqtid ma aha inaad khasabtid waayo haddii aad iska jool dejisatid oo aad tiraahdo saaka marka 6 lama waxaasaan sameynaya 7 waxaasaan sameynaya 10 waxaasaan sameynaya 20 waxaasaan sameynaya markaasaa nafta beenu sheegaysaaba olobto dabeecaddaada maaha waxay ma samaysid maxaa la rabaa dabeecaddaada is eeg war maxaa dabeecaddaada maxay tahay xilligaasaa jaanis haya waxaan as hob u samee nas as inay waajibto oo kale sidii masti wax waajib inaad samaysid ha u samayn ifan dadka diinta aad aragtay salaada ka tagtay wax ka tagtay oo dhan u fiirso waajib bay u arkaan hadda waxa as hob jacayl u samaysid waxana adiga faa'iido hadda ku jirta u samaysid ku raaxaysanaysid walaa diin baad khaldan walaa u trade balanka nooc aad unta samayso wax aad khaldan ma jirto all the time adaa guusha qaadaya waaye aysan loo reebay busii leeyahay adiga dabeecaddaada waxa ka jeceshay kuwa jeceshay saa jeceshay traderka nooca jeceshay sidoo qaado mid aan jeclahan qaadan hebel tiisa iska daa taada qaado sidoo kale analyska nooca jeceshay qaado nooca jeceshay waxa laga wadaa analyska kala joogo nooca kugu fahan ka dhow waqti yar ku fahan waqti yar ku shaqeyso haddii kale haddaad muddo dheer wax kusoo dhex jirtid wax badan ma kaalmaysa dadka halka 10% weeyaan waaya 10% ku xiga waxa weeyaan kii hore system buu ahaa kan laga rabo ku xigta waxa weeyaan waa patientigu ama dulqaadka patientigu ama waxay yidhahdaan dulqaadka waa 10% isagu waa 10% waxyaalaha isna meeshan ugu muhiimsan waxyaalaha ugu muhiimsan weeyaan qofku inuu dulqaad sameeyaa qofku suuqa ma kala joogo suuquna suuq wayna dumayaan saayada waayo wayna dumayaan ku xiga waxaan niri waa qof inuu leeyahay dulqaad iyo patientiga level 3 weyn qaadan qofka dulqaadka leh marka maxaa laga rabaa marka dulqaadkan qofka laga doonaya maxay tahay suuqani muxuu leeyahay kow suuqa inuu ku sabro inuu sameeyo systemkiisa ay system soo sameystay Soomaa inuu hayo ku sabro maalin buu iska boodin baashi dulqaad ka rabtaa hay isqabo xasarka saado ku cararaya wax xasarka saado aan la isla ku cararaya xasarka saado hormoon raadini xasarka saado qof iska maqlaya isqabo no that's joke waxaad leedahay systemkaaga raac of course wax qofku maalinta go'aan qaato maalinta nafta qaata ma jirto waxaa u baahan tahay inaad nafta bartid marka muddo badan bartid way la qabsanaysaa sidoo kale qofku maxaa la rabaa inuu entry pointiga iyo exit pointiga ku sabro labadaba inuu ku sabro waxa laga wadaa inuu ku sabro waxa laga rabaa qofka inuu si fiican wax aan la iskareeyo si fiican entry iska hubiyo kadibna uu markuu iska wada hubiyo kadibna uu qofku inuu entry sugaa qiimaha soo gaaro entry sug candleka ku xirno sug crossover ha dhaco ha jabo sug ha digdigin
patient dulqaado sug isku day inaad kaysatid sugtid isbar inaad sugtid oo guulaysanaysaa iska wada hubi wixii la rabay giddi iska hubi kana iska hubi kana iska hubi kana iska hubi waad guulaysanaysaa tareerka orod hadda ku qaatid orod kaga digtid waayo wax badan baad ka tegaysaa hadda orod ku qaatid waxba sug patient samee analyskaaga si degan u analyse kare iska hubi in analyskaaga saxsan yahay sax iska hubi in entry pointigaaga uu saxsan yahay sax exitka sug tbgana sug stoploskana sug labada waana sugtaa sabir bay kaa rabtaa ka dambeeya sabir kaa rabtaa waxa weeyaan risk managementiga markaad samaysatid risk managementiga waana ku sabartaa laba la kac lama rabo risk managementigaaga iskaga sabir risk managementigaaga ku sabir 10% waa inta qoriya 10% kani waa go'aan halka tanka kale xirfad iyo dadaal lahayd skill bay system inaad samaysataa xirfad bay kaa rabtay skillka waxaa kaa rabtay inaad trader nooca tahay doortid xirfad weeyaan analyzer barata waa xirfad entry point exit point inaad heshaado oo aad ogaatid trade balaankaaga systemka strategy ku gelisid waxa inaad heshid waa xirfad tani waa go'aan maxaa kaloo kugu xiga waa risk managementiga waa 8% risk management waa 80% waxaad arkaysaa qof aqoontiisu fiican tahay laakiin aan lacag aan samayn karin data haysta waa 8% boqolkiiba 10 waxay ahayd skillka ugu adkaa boqolkiiba patientiga waa 10% waxaa laga rabaa go'aan suuqa lacagta in hore cararta maaha kandal baa cararay boom baacso halkaas hal mar kandal booday baa arkaysaa boom soo booday kadaba hor boom gal oo tagaysaa sawaawikiisu kuu soo noqday boom sax maxaa qabat hada kaasoo kale waxaad mooday uu jabiyay hada ka soo qaad alkaa ifan kalon qaadeer waa sawiratay inkastoo dadka toonka bib raadinayay ka helaan laakiin boom inuu jabiyo qaadatay qofka raadiyay tag bulshada ka dhigtay qof baan si aan la iskaleen xagee qiimaha ka yimid afsal xaw ka yimid wuxuu u socdaa xagee loo socday adaa ku wax badan mas'uudinaya wax badan isweydiisaa time frame ka soo eegtaa kuwa caday waxaad gelisid trade-ka qaadaysa kuwa cada patient weeyaan timber waxa heshay 10% dulqaadka aad laga rabaa risk bear ajuujigu waa 3 horta waa kow waa xoolahaaga hal ilaa 3 ka badan badagin isticmaal position size calculator-ka waa kan isticmaal position size calculator isticmaal lacagta kugu jirta account-kaaga ku qor risk management-ga inta boqolkiiba 3 ka ku badan tahay bb kalluumaysi ku qor lacagta ku soo sawir halka lacagta ku qor inta bb doonaysa ku qortid waxa ku soo waraysaa inta lacag waaysid iyo la size-kaaga ma fahanti one of two rashi hada isticmaashid oo second two-ga ah waa faa'iidaysaa risk management-ga lagu sheegaya ee boqolkiiba 80 qaadanaya waxa weeyaan war haddaad trade qaadanaysid iska hubi trade-ka qaadanaysid boqolkiiba 3 badda ha gelin second thing waa maxay marka shayga labaad waa maxay shayga labaad laga rabaa waxa weeyaan waa inaad maxay samaysaa riski reward ratio waa samaysaa reward ratio waa inaad samaysaa reward ratio waxay ka tarasaa reward ratio waxay ku tarasaa waxay ahayd iyadu 1/1 1/2 iyo 1/3 mid walba waad taqaanaa si ku tarso wayna ku caday 1/1 ka hadaad ugu yaraan wana ugu yarto 1/1 tahay 1/2 tahay haddii aad la timaado labada reward ratio hadday saxsan tahay su'aalaha 1/2 hadday tahay boqolkiiba 3 na aad badal gashid analyse-kaaga entry ku fadhiyo saaxiibayaal already waad ku guuleysanaysaa system-kan waxaad u guuleysanaysaa sana caadi ahayn inaad inta la timaadid baa ka xigta inaad noqotid trader inaad inta la timaadid baa ka xigta inaad noqotid trader aad u fiican isla markaana suuqa faa'iido fara badan ka sameeyo isla markaana suuqa ka sameeyo faa'iido fara badan inta qoliga ka xigta hadaa inta la fahanteen 111 soo qora ما شاء الله marka way casharkeena kala u gudbinaa teena u gudbinaa way marka xiisada iska dhameynaa ayaan duubista teena u gudbinaa haday tala fahanteen qofka inta la yimaada boqolkiiba 80 kan risk management ugu muhiimsan saxa isla markaa saxa patientigiisa adkaysta 10%-ga 10% skills-ka la yimaada profitable trader buu noqonayaa adiga is weydii markaad xagaa maraysaa maxaa kuu saxsan maxaa kaa qaldan hadaad hore waxaan ugu jirtayna hadda miisaanka siisaa waxaa kaloo kamid ah stop-loss-ka hadda one of three lagu leeyahay halkaas jilcinaya marka one of three lagu leeyahay stop-loss waa laga hadlayaa la soco macnaha waa ina stop-loss-ka waxa ku xiga hadda waa ina ku cadahay waag halka maxaa ku qoran
stoploss bibiska intee bii bartay ka lunto waa inta bii lunto ka wacda boqolkiiba 3 wax ka badan boqolkiiba 54 ba waaysa tireen hugul duurayso dadka dhibaatada haysata ugu weyn waxa kamid ah qofkan wuxuu ku oranayaa qiimaha uu soo noqon doona anigu waa iska sugaya cayb badan baa ku jirta oo daad wax ka walumiyan oo daad ka walumiyan xalaha dadka qadana meelaha ugu badnaa ugu khasaaraha badnaa meelaha kamid ah meelaha ugu khasaaraha badnaa meelaha kamid ah meelaha ugu khasaaraha badnaa meelaha kamid ah inta soo sameeyay meelaha markaan fariisiyay aan lacag sameynta bilaabay meelahaas سادت أدم حلقة هذا سأنا فائدتي أدبش وسمين هل ما أنا أدون واين سوق هل مر بعيد كولاد كرا ستوبلس الآن صنعون أقولوا ستوبلس كا أقولوا أنت اللي بنتكلم لا والله أقولوا وهدا دون سنة تريدر في عنا قتي محاك هالله ما يكوت يا فرد ضربة وايسة إيه أنت حكوا حساب تمن تريدر كتوانك عشان هينسي كوت يا فرد ضربة وايسة أنت هل العقبة سمين كر الله حتى كوت يا فرد مو واي كرو واي شم توقع عشان تريد هاي سكور واي حسدين هذا سكوسو كوبناتن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته